Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin soo dhawaada walaalayaal meel kastoo naga maqasaan waxaa igala socotaan barahayga bulshada youtube-ka ugu horeeyo facebooka iyo tiktok-ka iyo meelaha kaleeto igala socotaan galab maanta waxaa idiin wadaa barnaamijkii xariif magaala idinma wado laakiin waxaa rabaa barnaamij kale oo faa'iido idin leh inaad maanta idinla wadaago wuxuu ku saabsan arrimaha diyaaradaha gaar ahaan saa ogtihiin diyaaradaha waxaa la socda dad la yidhaahdo cabin crew ama dadka ka shaqeynaya diyaaradda aan ahayn kuwa doolinaya iyo kabtanka iyo ku-xigeenadiisa aan ahayn dadkaas inta badan waxay qabtaan shaqooyin kala duwan oo ay ka dhex qabtaan diyaaradda dhexdeeda ha ahaato inay u shaqeeyaan dadka ama cunto siiyaan ama qof kaloo caafimaad xaalad degdega qabsato caawimaad kale u fidiyaan shaqooyinkaas u kala dhan bay qabtaan laakiin maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago bal shaqooyinka kale ay qaabilsan yihiin gaar ahaan dadka diyaaradda la socda ee gabdhaha ah ee loo yaqaano maxaan ku dhahay loo yaqaano queuga oo runtii aan ku naqaano oo keliya in cuntada iyo adeegyada kale ee diyaaradda looga dhex baahan yahay ay qabtaan dadkaasaan rabaa inaan idin wadaago shaqooyin kalete ee dhanka ammaanka ku saabsan ay qabtaan shaqooyin kale oo kow waxaa ka mid ah inay ka caawiyaan inay security screening ku sameeyaan dadka passengerska ee diyaaradda koraya gaar ahaan marka diyaaradda la korayo inta badan arrintaa waxay adeegsadaan marka diyaaradda la korayo ayay dadka qiimeyn ku sameeyaan intiina diyaaradda raacday waa ogtiin marka diyaaradda la gelayo cabin cruiska ama gabdhaha diyaaradda ka shaqeeya waxa ay taagan gabdhaha iyo wiilashaba yani nimana way ka shaqeeyaan waxa ay taagan yihiin meesha laga gelayo diyaaradda wayna ku salaamayaan inta badan hi welcome bay ku dhahayaan arrintaasi soo dhaweyn keliya ma ahan ee waxay kaloo tahay inay qiimeyn ku sameeyaan dadka diyaaradda koraya oo haddii ay ku jiraan maxaan ku dhahay ay ku jiraan wax oo khatar ku keeni karta maxaan ku dhahay diyaaradda ama qofka cabsan oo kaleeto ama qofka security threat oo kale ku noqon kara oo laga yaabo inuu hub wato ama wax kaleeto inay markaasi tallaabo ka qaadaan oo diyaaradda ay ka celiyaan taas waa kow waxaa kaloo jirta inay iyaguna shaqadooda kale oo ay tahay oo lamid ah oo arrintaas kadib ah inay fiiriyaan meelaha diyaaradda laga soo korayo oo ay la socdaan dadka diyaaradda soo koraya iyo noocyada ay yihiin iyo waxaasoo dhan inay la socdaan oo aysan keliya shaqadooda inay cunto keliya bixiyaan aysan ahayn waxay controlayaan dadka sidoo kaleeto diyaaradda koraya intooda maxaan ku dhahay aggressive-ka ama inay sumaysan yihiin oo kaleeto laga yaabo markay diyaaradda korayaan dadkaas sidoo kaleeto waxaan sheegnay midda labaad oo ah meelaha diyaaradda laga soo koraya inay xogta ku hayaan tikidhkaaga fiiriyaan mararka qaar ay dhiga ku weydiiyaan iyo baasaboorkaaga haddii waddanka dhexdiisa lagu safraya waddan dhexdiisa ay tahayna inay ku weydiiyaan maxay idhigaaga haddii uu safarku yahay internationalna ay ku weydiin karaan baasaboorkaaga si ay isugu fiiriyaan inaad markaasi khatar ku tahay ama aad si khaldan ku raacisid diyaaradda ama tigid aan ku goonayn aad qaadatid mida kale oo jirta waxay tahay oo saddexaad shaqadooda kaleeto inay sameeyaan ama maamulaan haddii crisis ama threat ama khatar ay bulshada ay diyaaradda soo food saarto tusaale ahaan bam oo kaleeto hadday ka shakiyaan ama in diyaaradda dadkii afduuman lahaay oo kaleeto ay yihiin waxa koraya waxaasoo dhan inay niyadda ku hayaan oo ka warqabaan waxyaabaha kaleeto oo cargoga ay qabtaan oo cabin crewga ay qabtaan waxaa ka mid ah inay controlaan baggageka diyaaradda aad la koraysid waa aragteen iyaan dhexdaas waxaa dhacday in nin uu la dagaalamay shaqaalaha diyaarad la yidhaahdo hindiya hindiyay ahayd oo nin askariyu ahaa marka isku halayn buu qabay waxbuu gaarsiiyey dadkii ka shaqaynayay meesha marka waxaa dhacday inay celiyeen diyaaradda maadaama diyaaradaha raqiiska inta badan ee hindiya iyo ka dhex shaqeeya ama hindiya banaankeeda aada ay raqiis yihiin inta badan waxay lacagta raqiisnimada ay ku kabaan dadka alaabahay wataan marka 10 kg ka badan diyaaradaha luggage-ka gudaha loola gelayo ma lagu ogola asaguna wuxuu isku dayay ama 7 kg qaarkood baa ah wuxuu isku dayay wax ka weyn inuu la galo marka way u diideen ayaga dhan ayuu la diriray marka taasoo kalena way controlaan inay fiiriyaan baggageka dadku ay wataan iyo waxaasoo dhan inay controlaan oo isku dayaan inay ka warqabaan inta ay tira leeg tahay waxay kaloo fiiriyaan ama qiimeyn ku sameeyaan diyaaradda hadday wax ka dhex dhacaan inay qiimeyn ku sameeyaan cadada dhacday maxay u dhacday dadka geystay security-gii banaanka diyaaradda jooga inay la xiriiraan waxaasoo dhan way controlaan
ma garateen marka ha u malaynina keliya dadka diyaaradda ka shaqeynaya ama gabdhaha iyo wiilasha diyaaradda ka shaqeynaya inay keliya qaabilsan yihiin cunto siinta iyo adeegidda dadka diyaaradda saaran waxay qaabilsan yihiin hawlo kale oo tiro badan oo ka warqabidda dadka ah iyo sharciyadooda iyo howlahaas oo dhan marka waa inaad iska ilaalisaa gaar ahaan marka lagu salaamo qaabka u jawaabaysid waa inay tahay qaab waadixa oo cad oo wax walba ay markaasi ka dhex muuqanayaan marka aad baan idin salaamayaa maanta muuqaalkeenniina intaas ayuu ku egyahay waxaan rajaynayaa inaad ku dhaxaysan doontid kanaalka subscribe dheh aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah